koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay beriga waxaan soo xusuustay hees ou kadleeya sameeye allah u naxariistee waxayna ahayd runtu beenta wow cadow xaqi baadi laga raac beladana dad baa dhigay raganimoy lagaa badi warkaan soo bayaanshee boosta kuugu soo diray isna baalmartoo ogi baabbi'isa qoyskii baradana nabsaa yaal wixii kaaga soo baxa berrito waad ka sheekayn cabdullah waxaan maqli jiray dad waa dadkii hore hadalna waa intuu yidhi nimayow idinka hadal ba idinkala caddahay magaaladana zawdir ayay ku jirtaa war dad horan dhammaadi mayninkabu buunidan haani hati roogan mahaalyo magalaana war shalay bugtii dhacday waa lagu baaba'ay musiibadii hoteelada muqdisho lala beegsan jiray la soo celiyey marka intii dhimitay allah u naxariisto inta dhaawacana allah bogsiiye inta kalena talay rabtaa digaarkay dad ninkii dhalaa dhaqankiisa yaqaan war abwaantima addamay baaray dab markuu baktiya meel kale dobab ka qiiqaa beryaan waa neebsanay haddin uunkeenii bilaawday war abwaan shoonka wuxuu yidhi kuman dubantay kuman diirantoo dhiig ka daadanayo iyo kuman la doondoonayo ciidan daba joogo oon damaanad qabin baa ku nool daarihii xamar warnimayahow hoteelkii la weeraray wuxuu ahay hoteelka maanta ugu quruxda badan magaalada muqdisho wuxuuna ku yiilay meel qurux badan wuxuuna ka soo horjeeday badweynta hindiya wuxuuna ku yiilay xeebta loo dalxiis taga ee liido marka xaqiiqadu waxay tahay muqdisho inaan qurux loo rabin dadka joogana aan nabad loo rabin hadda talaa la iska rabaa warnimiya may dheega jiray habar fadhiidi legdin la fududyo talaa la iska rabaa geeda un bogyay la fadhiidan haliinkona ma gurmadohay maysinka dhiisan warnimiya ninaa wuxuu cilmi baaray canshuurta dawladdu qaado iyo baadas shabaab sakawaadka u bixiyeen dadka laga qaado waxayna noqdeen gaalkacyo iyo kismaayo inta u dhaxaysa dadka dega wuxuuna yidhi canshuurta dawladdu qaadiya sakawaadka carruurta ma taqaan cidda dhiibta aryaanaga shibbe naaru meel qabow ma lehe war dadkii damiiran lahayna inoo isdifaa'an diidan inoo la daaga meelika jarta war jarnaal cabdalla toddobaadka hor wuxuu soo qoray madaxda al-shabaab kuwa duurka jooga iyo kuwa magaalada muqdisho jooga waxay isku haystaan canshuurta laga qaado dadweynaha waxayna goordhow muqdisho ka fulin doonaan qaraxyo waaweyn oo isku heedaynayaan marka dadka ha digtoonaadeen ayuu toddobaadka hor yidhi war cabdalla xalayoo mar kala hadlay wuxuu yidhi waxaan horey u sheegay waa bilaabatee dadka muqdisho jooga ha digtoonaadeen aryadhaha loo diga amba yaa loo digin xaadisu daalihaysiinhow dadkaan kooley daamiir leehayd dubow yaa dilba wow diyaar dadkaan kooley daamiir leehayd dubow yaa dilba wow diyaar maahino war xalay markii masiibadu ka socotay hotel elite madaxweynaha Soomaaliya wuxuu page-kiisa Facebook soo saaray khudbadu maalin hore u jeediyay baarlamaanka wuxuuna ku soo qoray wada hadalku wuxuu sii xoojinayaa wada jirkeenna iyo dimuqraadiyadeena iyo inaan siyaasadda dalka ku hayno tala wadaag iyo isogol kadibna dadweynihii ra'yiga ka dhiibtay madaxweynihi ayay ku kaceen eedna dusha kala fuuleen qaarna waxayba yidhaahdeen waxa caawa dhacaya wax madaxweynuhu sheegayaa kala foga hadda wax 10 daqiiqa ka yar markii loo adkaysan waayay dadweynaha eedoodii ayaa laga bixiyaa la yidhi filinkii Facebooka kadibna waxaa la soo saaraa la yidhi madaxweynuhu ka tacsiyeynaya waxa dhacaya iyo dhibaatada hotel elite ka socota laakiin dadkii garawsho ugama helino waaba ka sii dareen warnimiya may baleeray lanki hagalowjay humaay bahowjaynu humaade madaxweynaha markii hore ba Facebook iyo dhigay dooro kii gurto rifawga kala jeed wala dambe ay ku akhriisadeen war anigu waxaan akhriyo kommentiyada dadka qoraalka madaxweynaha ay ka bixiyeen indha curdoona kumantiyadiyaan akhriya kulaha warwarkayga dhexgelina waxaan ogaaday farmaajo iyo geeya inay dhammaatay warnimayo ninkaasi waa qaran dumise warkiisa intay iska daysaan dadweynaha Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin doorasho qof iyo cod inay dhacdo war waan u jeednaa waxa socdee dhimasho qof iyo cod Allah naga haayo war cabdikuusow taasi waa duca siyaasadeed aqbalkana Allah iska leh warnimiya masiibadii hotelkaas ku dhiidi dawladda ambaaraytay warmadayow ambaareen adu kaamilisa soo adima dhigi jirin war wixii dhacay amisom fadhigeeda ayay ka cambaaraysay warmaday saqdii dhexe markii weerarka la soo afjaray wuxuu yidhi ciidanka hoogay afjarayne
war arrinta kaloo yaab kale waxay tahay masiibadu intaysan dhicin ka hor qof ku dhintay degmada shibis meydkiisaa meel la marsiiye la waayaa la yidhi dadweynihi ayagoo hantooshii garabka ku sida ayay sanca ku geeyeenaa la yidhi meel kastana waxaa taagnaayoo dadkaasi meelay ka maraan waayeen askari iyo dhagax marka iyadoo taasu jirto waxaa lala yaabay in gelinkii dambe baabuur maleeshiya sida iyo mid qarax sidaah inta dhaafaan waxaasoo dhan hoteelkii dalqa yidhaahdaan war horta anigu waxaan la yaabay hoteelkii la weerar oo dhinac kasta jeegboonti uu ka xigo meesha uu qaraxu u soo maray wariya meesha u soo maray antiningaleta habsiga dhah meelilah marya goradaaseeda war adiga laftaada waa maran tahay ciidankii xarunta xisbiga agtiisa degnaa xaggee loo soo maray aryadhaa xaadis u wareerihaysiin dheregi la fahadeeyey oo fuudka celshamiyaadan maqlina war abdilo adan aftaakii liyaabay mid dheegna dherigii lafyarlah ku bii waayey lafwiinga la geliye war hoteelkii masiibadu ka dhacday milkiilihii iska lahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur ma codeeyey yow u codeeyehe war hanala waalinina xildhibaankii wuxuu yidhi weerarka argagixisadu nama niyad jabinayo shalayna anigaa dhisay berrina waan dhisayaa sharwadayaalna uga tegi mayno shaqadeenna iyo dalkeenna dhismihiis intii ku dhimatay falkii hoteelkayga ka dhacana waa ka xumahaya allah u naxariiso intii ku dhaawacantana allah caafiyo war muqdisho meeshii qarax ka dhacee la dumiyo haddaan dib loo dhisi lahayn oo layska dhaafi lahaaye jasiirad aan cidi ku noolaynay noqon lahayd aryadhaha waxaa la yidhi nima shantaadu kaa celin sharci kaama celiye waxaan dhihi lahayo berigaashow buuga dhacde mabaaqiga labaabaa berigaashow buuga dhacde baaqiga ma labaabaa war madaxweynuhu waagu tartamayey wuxuu yidhi hoteelkii la qarxiyo iyo gurigii la dumiyo dawladdaa dhisaysa marka kolley horey wax looma dhisine tolowkan ma la dhisi doonaa war madawiinaha geekustartamaayo wayba eray jid dambe li hiri doono ma jira ammaanka hooba sugu waayona baaburtigu wiinka dabada ku galee waa eri war madaxweyneha waagu tartamaya wuxuu yidhi 2 sanaan shabaab ku soo afjarayna loomana dhaqaaqin war madaxweynuhu markii uu tartamaya wuxuu yidhi nabadoon ayaan noqonayaa aryaada idinkoon iswareerin hadda ka hor nin heesa wuxuu yidhi ciriblaay walaal codkii aan lahaa adoon ceeb ka dhigan cayaar buu ahaa warnimada war ma haysaane deegaanka goofgaduud buurey ee gobolka baay tii ka dhacda waa la yaabay waxaa isku galay shabaab iyo ciidanka dawladda laakiin masiibada ugu xun waxay ahayd markii shabaabkii la jebiyey ayay meydadkii ay ka tageen miinooyin ku xidheen kadibna waxay la kacday guddoomiyihii deegaanka iyo taliyihii ciidanka wareerde dad noolayba miinada ku xidhaane ma midliisay uga turayaan war meydadka miinada karfan miyaa uga dhigeen war allaha u naxariistay guddoomiyihii goofguduud idaacadda kulmi ula hadlay intaan la qarxino ka hor wuxuu yidhi waa jibini waana ceerinaynaa laakiin markuu ka soo laabtay ceeriduu uu sheegay ayaa meydadkii laga waafaqay aryadhaha wax in laas warsada ma xumee geda iyo goodax barre shala maxaa kala gaaray war goodax barre iyo wafdi uu hogaaminayo masiibadii amiinu waa asaa la yidhi laakiin alla waa ka badbaadiyey war goodax barre keliya ma ahayne gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mawlid guhaad ayaa wafdiga ku jiray warnimiyaw bilaayada meel kasta yaala la eray ha baabuur bareegha goosad iyo bakaaraha dadka baabah kadakiya la eri war balaayadu meel kasta way taale afgooye meel 3 kilomitir u jirta gaaridda xulsida ayaa shabaab dab qabad siiyeen kadibna dadkii lahay oo daawanaya oo hortooda ku basbeelay war waa ciil iyo calool xumo hantidaadiyo hortaada ku gubanayso dad ku gubayaan inaad daawataa aryadaha Soomaaliyeed idinkood isxumeyn oon ooyin waxaan idin dhihi lahaa wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya haye war shirkii dhuusa mareebeed ma furmay war madaxweyne dani wuxuu yidhi beesha caalamku ilaa ay timaado ay gobjoog ka ahaato ma tegayno shirka dhuusa mareeb sababtoo ah dowladda federaalka wixii lagula heshiiyo fulin mayso war waxaa la yidhi shirka madaxda ka maqani waxay dhaheen ra'iisul wasaare ilaa la magacaabo yaa fulinaya haddaan heshiinno waxaan ku heshiinno war ma haysiina shirku caawa furmaya ayaa la yidhi reer awleen haddii moqnyin reer isteeda lan furay shirka aryadaha ma waadan maqlina hanqaraarac lug uma hidkiyo dowlana nin war yaa war ma haysiine shirka isteeda ilaan keliya ma quseeyo madaxweynihii maamul goboleedka banaadir cumar finish waa ka qayb galay
haa runtiis way geedkii jinka boodaboodo koofadee la eri hang meelisafanba madaxweyne goboleed ley maaha waraa shirka hore cumar finish laguma casuumine midkaan maxaa loogu casuumo maqaare beddelkiisaa la geliyey waryaada waxaa la yidhi laaluushiya intay laxo qabiil midow lagaygayso ama in lacag ku doorana hayaan liidarkii goluhu codka loolankana loogu ridi kii lunsaday maalka inaad liidato waxaad lahayd lumisa mooyaane lama filo ladnaan iyo wanaag aad ku lulata aryaa gabagu waa saad u tirisa laakiin waxaad ilowda waxaa talada loo dhaamayaa dheeri kala doone war adigaba waxaad ilowday laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon waryaa idinkuba waxaad ilowdeen shaki malaa inay laba shabaab wada shaqeeyaan war isinba ma hilmaanteena laalushqaataha iyo musuq maasuqlowda waan xiraynaa aryaa waxaa talada loo dhaamayaa wax dheeli kara doonaan idin dhahina naga hortag doorashadu waa inay dhacdaa tago wax qayr qaba allaa soo yeeriye